waxaan anigu u dardaarmaya quraa'da cusub iyo kuwii hore iyo kuwa soo socdaba inaan quraanka weyn ee la siiyay inaanay adduunyo indhaha u taagin adduunyadu hortooda soo maraysaa dad haysta bay arkayaan dad ku mashquulsan bay arkayaan macmacaankeeda ay arkayaan dhaldhalaalkeeda ay arkayaan waxaan idiin sheegayaa aniga tajribadayda khibradayda keliya oo kooban 40 sano intii dacwadeenan ku jiray ma aanan arag qof inta quraanka ilaahay siiyay oo bari jiray oo bartay oo markay adduunyadii oo quruxsani soo hormartay xageeda aaday quraanka majliskiisina ka kacay oo adduunyo ku liibaanay ma aanan arkin oo ku guuleystay ma aanan arag indhaha masaar qaar waxaan ogahay hadday majliskii quraanka ka kaceen ya si fiican u dhageystaan nimankiina quraanka xifdiyay oo haya iyo macallimiintiin si fiican u dhageystaan intay ka kaceen majliskii quraanka ilaahdeen halka ay joog bal xooga aan soo shaqeystay adduunyada sida dadku u shaqeysana macnaha ma aha amalka inuu xaraan yahay oo aan sheegayo laakiin waxaan sheegay inuu adduunka kaga mashquulo quraanka kacay oo istaagay oo 20 sano 15 sano 30 sano wali adduunyadii baadi goobaya majliskiina aan ku soo noqon adduunyada aan soo qaban bana qaana tobanaan iyo boqolaal ma garanaya haddana waa idiin sheegaya adoo ilaahay dadka ka soo soocay sidoo sheekh dr maxamed yahay dadku ka soo thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina wala qudorti iska qof walba iska sii inaad kitaabkii ilaahay laabtaada uu ku xifdiyo waa doorasho lagu doortay doorashadii marka inta diida ka tagto aad meel kale aado haddaan idiin sheegayaa ma keenaysaan laakiin isaga haddaad u adeegtaan oo ku sugnaataan lugihiina iimaanaysa iyadoo socota adduunyada lugihiina kaabihiina hoostooda iimaanaysa iyadoo daliila atathu ad-dunya wa hiya raghima anagu inta kaliya aan kula dardaarmaya inta kaliya aan kula dardaarmaya macallin hebel baa tagay kitaab yar baan soo wadaa hadda aan macallimiin kaga sheekeenayo adduunyada galay iyo wixii ku dhacay waa qiso waa ibra iyaga iga sheekeeyay ma garanaysa macallin quraanka dhigaya oo fiican oo dugsigii dadkii baraya oo ilaahay codsiiyay oo ilaahay quraankiisii waa wuxuu ugu yiri maalinta waxaan arkaa rag xoogaa lacag kale rogaya akawnadooda xagga waxba soo mara lacag baa soo intaan oo $1,000 markaas uu yiri walaal meesha maxaad la fadhidaaniyo hadaba baasha rabto de soo fuul taraag bay yiraahdeen fuul bir gaari taraagada ma taqaanin lawado baabuurka isjiidyada ya batroolka iyo qaad trailer bayna soo fuul walaakiin intuu مصحف كميش اللي أرضيدين وقلت له هذا يقول سوى جماعة ذي يا ماشي على العيق ما صعدت العقب على شيء حبيري لبسنا بانكوجري وأنا حلقتنا فريسان حلقتنا أنا وذي لا بلود مركان وذي وهو حلو امتحامية قال لي بحث معلم بميل بفريسان معلم ببنجر حوالي مركان سوشي قيو بربع شبان حاجة مركان حوار كسوق هذا إسقي باعورة ما لين دم أنا رمضان إتهاي أو إركاس وضد صارن أو رئيس سرية عند هذا بش سيدي تكون $1 باليري بالوجو سماينية مساجد بانسك قليل بيرفع يا إذ أبغى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم يا عبد أبق وهو عرري مركا والا سعري ما يكون دايرين ايه وحويري وحن قصوق المساجد اول هوين رمضان بين نقطتي مغرب كيما ماشي اسكيتو كذي عشيه بالي وحال يتراويح بالي تكنيا وهابينك رئيس رمضان ضد مسلمين ماشي وين ويل باتو جينيا هذا صور حفاظي انما هو فديان موبل بوكا اخرنا يا
qur-aanka mobilku ka akrinaya taraawiix buu tujinaya hal xaafidu kuma jiro meeshaas isagoo mobilka ka tujinaya buu qaldayaa buu yidhi gadaashaan taaganaya safka saddexaad baan ku jira 2-3 jeer baan suurat albaqara bilowgeeda saxay 4 ragco markaan tukanay baa nin safka hore ku jira oo midha guddiga masjidka odayaasha wuxuu yidhi walaada ninkan qur-aanka saxayo walaalo xaafid baa tahay markaasaa alxamdulilah waa xafisana waa kaalay afarta dambe soo gal buu yidhi natuji isaguna waxa weeye codka haddee yani alimaam alxusari allah yarxamu kama garanaysid codkiisa wuu soo galay 4 ragcaan tujiyey uu yidhi witerkii baan tujiyey markaan salaadii ka baxnay jilba sheekho ilaahay noo ka keenay arna tuji ar xagga u socotaa waxaan ii buu yidhi waddaan saarnahay geel baa ii raran ay mashquulinina walaalow nala joog waa noo jeedaa xaalkaya ramadaanka keliya naga saa taraawiixdana tuji waxaa rabtaan ku siinayna xoolo waxaa doontaan ku siinayna baabuur baa halkan igaga jabay safar baan ahay nakambira caawa horta martibaa tahay hotelkan seexo subaxdii gaarigii bay geeyeen gaarigii buu ninkii warshadii weydiiyey war maxaa lagu samaynayaa gaarigan soo jiida oo warshada geeye 8 baa lagu samaynaya jeeg buu ninkii u gooyey wuxuu yidhi samaya gaarigan horta bal iga reeb nakeen macallin karaamadii qur-aanka mawjida nolosay u tusayso ya iyo wuxuu raadinay jeegii buu u gooyey 8 dhag wuxuu yidhi horta samaya gaarigan nakeen hotelkan uu idejiyey buu gaarina waa ii keeneen oo ii soo kireeyeen waxaa la yidhi bas ayaamaha natuji salaada natuji toorahana natuji nimankii waa yeelo bishii baan la dhamaystay bishii markaan la dhamaystay bay $5,000 oo Soomaali ahna ii keeneen waxay yiraahdeen sheekhow nala joog guri baan ku siinaynaa waxaan ku siinaynaa waxa doonto mushahar fiican baan ku siinaynaa $2,000 salaada najahriga iyo natuji dadkan quraanka bas inta kaliya wax kale aan samayn waan ka tagay وديدي على كل حال أنا صوت جبي لبصنا ودين قبه بنكسر نقضي قرآن كي بكسر نقضي مرك إلى يوسع عليه وحبل التصير روح لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به كما كان إنسان هدان إذي شيء هدي إذا دمع جلسوا يسلي دار دار على قدسه أوه كنت راجع قلا سوق يلا قلا كش قشته واحدة من ملا لكن أمانة إلهي إذن ديبي أو غلابتي نكو حفظي إن أدبرتان أو برتان أو كو عباديستان بو إلهي إذن سيئي إذن مسن إن أدوتك تقول برين تدخل سوق كوشا وأن أمانة أصل سين وأن كتاب كان سين وأن لابتو ذلك حفظين وأبنيه مسلمين marka adiga waa laga soo doortay adduunyaha ku raadin dad madaxa iyo dad siyaasad ku jira iyo dad ku jira maxaan ku sheegaa adduunyo kale magac waa garanaya xataa kuwa siyaasad ku raadsan magac iyo jago ku raadsan quraanka uga tagay ma ku soo sarin marka anigu waxaan idin leeyahay wixii ugu weynaa baa ilaahay idin siiyay ilaaliya oo bara حديث كما أنت اللي نقول أخرنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه عثمان بن عفان باوري رضي الله عنه سمعها يا كوري تابعي كوري أبو عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي حديث كان كليه كما ورينه قرآن قدام بو إنه وصح حنباري عثمان وادد كزوري قرآن كان يقول إن السوق جاره صحابة كسوق هذا وحني الحديث كاس مركو وريني هذا الذي أقعدني هذا المقعد كرسي جوحه فدي بلي تيركا كوفة أفرتن صنوب فدي القرآن كبريه أبو عبد الرحمن السلمي حديث كاسا إفريسي بير هالكاس أدو جدا هذا الذي أقعدني هذا المقعد جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم